kulankan oo South Sudan xaliya kuwan nagama awood badno anaga isku jiraanahay inay dheri maane nagama awood badno kuwan hali ebras dhig kara oo Soomaali ku adkaanaysa waxay ismuujiyaan Soomaaliya dhalinyaro waxaan dhila ismuujiya waxaa maanta garoonka Abikale Stadium ee magaalada Addis Ababa ee cariga dalka Itoobiya ka qabsoomi doonto ciyaarta finaalaha tartanka xiisaha badan ee Sakafa ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseyso 17 jirada iyagoo markaasina wajihi doona xulka qaranka ee South Sudan qaar kamid ah dadweynaha ayaan mikrofoonka risaalo la dhaxqaayo doona kuwaasi oo aragti ka dhiiban doona finaalaha tartanka Sakafa Under 17 kaasoo maanta ka qabsoomi doona magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ugu horeen xulka qaranka Soomaaliya 17 jirada waxaan u rajeynayaa guul waliba guul taariikhi ah oo Soomaali meel walba joogto ku wada farxdo xulka Soomaaliya sida ogsoonaa waxa fiiranka ila joogtaa xulka South Sudan iyo Soomaaliya maanta dii la fiirin isku taariikh ma inkastoo kubadda cagteeda cad iyo madow hadda South Sudan macnaha waxa bulugeeda xageena ka tahay aniga waxa isla ciyaarta maanta waxay ku dhamaanaysaa 2-1 Soomaaliya ku badiyayso wallahi horta farqi weyn u dhaxeeyo inkastoo kuwa hore ba la jinaayeen oo fiican yihiin dhamaantood ciyaartoyda Soomaaliya kuwa hore ku hadda laakiin kuwa hadda waxay nasiib u yeesheen taageero hili hall la garab taageer inkastoo kuwa hore macnaha xogaa taageero la sii jir hooseysay laakiin kuwa taageero haystaan Soomaaliya wada kacday marka hadda waxa arkaysaa hadda ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya 17 jirada ra'iisul wasaaraha uu tagay waxa uu tagay ishaag wasiirka sportska si socdo waxa ogtahay madaxweynaha oo deegaanka Soomaalida waa tagay marka taageernimadaas iyo moralkooda kor u kacay kuwa hore macnaha moralkooda macnaha waa disnaa jiray marka aniga waxa isleeyahay maanta Soomaaliya 2 gool iyo gool ku badiyay insha Allah yarka oo elman u dheelay goolka dhalay magaciis Abdi Xafiid labada gool asaan oo saxiixa taageero weyn xulka qaranka Soomaaliya kooxda elmanna waa wallahi horta raja anaga mar walba raja leenahay qof walba rajo leeyahay waxaan jeclahay waxaan rajeynaa inaan finaalkeeni ay noqon doonto finaalka aad u qurux badan aad iyo aad maadaama sanadkii hore laga qaatay waxa mar walba ciyaarta lagu sheegayo waa galin hore iyo galin dambe fahanti laakiin waxaan rajeynaa inaan noqon doono dadkan ku guuleysan maadaama hadda aan guuleysanay wili rajadeena waxay sii tahay koobka inaan sii qaadano wallahi hadda saadaal ahaan hadaan dhaho hali ebras dhig kara oo Soomaali ku adkaanaysa waxay ismuujiyaan Soomaaliya dhalinyaro waxaan dhila ismuujiya wallahi billahi xulkeen horto insha Allah guul u rajeynaa koobkan in xamarkeenan raba Soomaali ahaan ay keenan teeda kale xulka labadii kulan u dambeysay hadda isbedel fiican Itoobiya karaayeen Uganda way karaayeen insha Allah koobkan waxa rabaa inay noo soo qaadaan teeda kale sanadka hore waxaan reebtay Tanzania sanadkan waxa rabnaa in aan guuleysano faanti fi sanadkii 2018 finaal imaan laakiin sanadkan insha Allah koobkan anaga iskale macallimu Nuur Amiin aad isbedel fiican keenaa wallahi xulka waxa waayo under 17 kan dad aad u fircan waa insha Allah isku xirnaansho fara badan ka arnaa waxa rajayna insha Allah koobka in anaga noo keenaan wallahi billahi wax farqis u weyn ma lahayn ciyaarahanada markii koobku soo dhaweeyay laga yaabo in isku taabto laakiin kuwan waxa dhigi kara juhdi badan ay galiyay dadaal badan ay sameeyeen tababaro fara badan ay qaateen ma fahantiin isku xirnaansho fara badan ka arkayo waayo dareemi kartaa gool ka dambeysay loo dhalinayo baas ku bixinayo xafidna ugu soo arkiis marka waxa dhigi karnaa marka xulka aad sanadkan waxa kacsanahay insha Allah waa goobkana keenan wallahi bila ciyaartan wuxuu ku gabay 2-1 laba ku badanina insha Allah hadii aan waxyar ka hadlo ciyaarta u dhaxayso South Sudan iyo Soomaaliya qarankeena Soomaaliya horta wuxuu guul oo rigoorgaal ka soo gaaray qaranka Uganda South Sudan waxay 3-4 kaga soo badisay ciyaar dalka Tanzania aan ahaan waxaan rajeynaa sanadkan macnaha kan koobkeena inuu noqdo sanadii hore waxaan jiran tartamayaal laakiin kan waxa waa Kenya way aan ku madax degsan lahayn Soomaaliya markii hore waxaan ka cabsanahay inay Tanzania soo baxdo xogaa Tanzania mu awood badan waxay ahaayeen min xoog badan 2-1 inaga soo badiyeen inkastoo farmashinka macalinka wax ka bedelay ciyaartooyda oo dhiganay kulankan oo South Sudan xaliya kuwan nagama awood badno anaga isku jiraanahay inay dheri maane nagama awood badno kuwan ugu dambeyn ciyaarta waxaan ku saadaalinaa in 2-1 aan ku awood sheegano 2-1 goolasha waxaan ka heleynaa ciyaaryahanka Abdi Xafiid oo gool dhalinayo
iyo cabdiraxmaan camo oo difaaca uga ciyaara nambarka 18aad gool inuu dhali doono test ah waxaan rajaynayaa 2-1 ugu badan xulka qarankeena Soomaaliya ayaa markii labaad waxay gaarayaan finaalaha tartanka xiisaha badan ee Sakafa ciyaartooyda da'doodu ay ka hooseyso 17 jirada iyadoo ay xusid mudan tahay in sanadkii 2018 sida finaalaha ay u soo tigsadeen balse nasiib darro natiijo guul darro ay kala kulmeen dhigooda Tanzania maantase waxaa la filayaa natiijo ka duwan midii sanadkii 2018 xulka qaranku uu tartanka ka soo qaaday waxay kula tahay adigu in ciyaartan ay ku soo gabagaboobi karto Cabdirasaaq Sakafa warbaahinta Risaala Muqdisho